Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka cabdi khayre soo dhowaada barnaamijkeena maanta waxaan uga hadli doonaa aas-aaska fikirka guuldarrada maxaa sabab u ah in inta badan dadka ay noqdaan kuwo ku guuldarreysta barnaamijkii ay wadeen ama shaqadii ama waxbarashadii ama howlihii kale ay wadeen iyaga oo aan ka guul gaarin intaana muuqaalka u gudagelin fadlan haddaan nagu cusubtahay nagu soo biir oo channelka subscribe inoo saar muuqaalkii nolola garay si uu u gaaro dad badan sheerta ha ka ilaawin oo la wadaag saaxiibadaada ugu horeyn waa maxay guuldarradu waa lidka guusha guuldarradu waxaa sababa inta badan dhowr shay waxaa ka mid ah kow fikir la-aan labo falanqeyn la-aan saddex qorsheyn la-aan afar isku day la-aan shan sameyn la-aan lix sii wadid la-aan intaan hadda aan kuu sheegay waxaan ku sheegnay muuqaalkii hore oo ahaa aas-aaska fikirka guusha lixdan tallaabo haddii aad sameydid waxay kuu sahashaa waddada guusha balse haddaadan sameynin waxay keentaa waddada guuldarrada lixdan tillaabo waxay sahashaa haddii aadan sideetaa u falanqayn sideetaadan u dabaqin waddada guuldarrada maxaa haddaba dadka inta badan keena inay noqdaan kuwo guuldarreysta ayaga oon weli hadafkii qaybta koowaadba ka gudbin sidii ay u noqon lahaayeen dad guuleysta waxaan kula wadaagayaa 8 tallaabo kuwa qofka u soo dejijiya inuu ku guuldarreysto waxyaabo badan lambar 1 waxaad tahay inaadan aqoon ogaansho la-aanta waxaad ku fiican tahay ood ku guuleysan kartid aqoonta ama cilmiga ama xirfadda u leedahay oodan aqoon lambar 2 qaadasho la-aanta mas-uuliyadda doorashadaada horta qaado mas-uuliyadda doorashadaada haddii aadan qaadan mas-uuliyadda doorashadaada oo aad tahay qof inta badan mas-uuliyadda doorashadiisa dad kale u dooraan shayga waxaa tahay qof guuldarradiisa hooy iyo aabbe u tahay lambar 3 adkaysi la-aanta adkaysi la-aanta ayaa keenaysa inaad noqotid qof inta badan u saaxiiba guuldarrada waxay u badan tahay inaad ku guuldareysatid oodan inta badan shaygaas hore u sii wadin 4 deji la-aanta yoolal cad hadaf la-aantaada yoolkaaga ama meesha aad u socotid oodan caddaynin oodan muujinin oodan hubsanin waxaad adigu damacsan tahay oodan muujin dhaqankaaga iyo kalsoonidaada iyo rajadaada haddii aadan xoogga saarin oo adigu is caddaynin adigu muujin dadnimadaada issoo bandhiginin waxaad tahay qof aan marnaba yoolkiisa ka guulgaarin waxaadna tahay qof guuldarreysan doona lambar 5 u adkaysi la-aanta dhibaatada inaadan horta u adkaysan karin wax yar oo dhibaataaba iyadoo lagaa rabo inaad noqotid qof adkaysi leh mar walbana oo kufaysaa waana dhacaysaa waana kufi doontaa waana dhacaysaa waxaa lagaa rabaa inaad adkaysato laakiin waxaa tahay qof aan adkaysi lahayn mar walbana dhacaya waadna cabaadaysaa sidaas laajligeed waxaa tahay qof guuldarreysta haddaba waxaad u baahan tahay inaad noqoto qof adkaysi leh si aad dhibaatada uga gudubto laakiin haddii aad tahay qof aan adkaysi lahayn dhibaatada waad ku jiri doontaa lambar 6 barasho la-aanta kobaca micnaha in haddii aadan qof wax cusub curinaya sameynta waxyaalo cusub mar walbana muujado cusub aan gelaynin oo waxyaalo cusub aan baranaynin waxaa tahay mar walba qof meeshii joogaya un mar walba qof guuldarreysta ayaa tahay lambar 7 nafta rumaysi la-aantaada ama ku kalsoonaan la-aantaada nafsadaada nolol cusub u jeex waddada guusha haddaad u jeexaynin oo waddada aad nafsadaada aadan adigu maamulaynin hogaaminaynin waxaa tahay qof nafsadiisa asigu u jeexaya ama u hogaaminaya waddada guuldarrada mar walbana waxaad noqon doontaa qofka guuldarreysta dadkuna waxay ku dayi doonaan qofkii guuldareystay nafsadaada haddii aad ku kalsoonaan weyso waxaa tahay loser qof guuldareystay ayaad noqon doontaa lambar 8 mahadsanid la-aanta micnaha dadka u mahadceli qofba kugu soo dadaalay juhdi kugu baxshay maal cilmi caqli maskax waqti iyo dadkaas hooyada aabbaha walaalaha saaxiibada dadkaagi ehelkaagi qaraabadaadi intaba way noqon karaan xaas hadaad leedahay haddaad saaxiibo gooniya leedahay dadkaasoo dhan qof walbo kugu hareeraysan ka qayb qaatay inaad noloshaada horumar gaarto xitaa hal qof oo maalinku yiri saaxiib sidaan ka bedel sidaan yeel sida ay yeeshay noloshaada horumar aad ku gaartay qofkaas haddaad u mahadcelin kartid maanta haddaad aragtid u mahadceli waayo wuxuu mudan yahay inuu magiciisa waayo shayga uu shalay kuu tilmaamo ood yeeshay oo guul ku gaartay mahadcelin buu mudan yahay
mid ka weyn baan kuu sheegayaa, guuldarrada ugu weyn adduunka waa inaad xarigga Allah ka furatid. Allah subxaanahu wa tacaala inaad noqotid qof xariggiisa ka furtay oo noqotid qof qaada waddada cadaabka, waddada halaaga, waddada khasaarada aakhiro iyo midda adduun. Ilaahay nama tuso, Ilaahay naga badbaadiyo, Ilaahay ha ina xifdiyo. Haddaba walaal naseexo ayaan ku siinayaa. Intaad noqon lahayd qof dulleysan, noqo qof sharfan. Horta ugu horreyn garo xaqa Allah subxaanahu wa tacaala kugu leeyahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala bari. Xaqaad leedahay, xaqu Alle kugu leeyahay, xaqaad ku leedahay, xaqaa Alle kugu leeyahay horta gudo. Ilaahay haddaad wax walba samaysid, Ilaahay hal sentina kuma kordhinaysid. Adiga un bay dan kuu tahay. wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun. Insi iyo jin Ilaahay uma abuurin inay daara dhisaan, dabaqyo dhisaan uma usa abuurin. Wuxuu u abuuray inay asiga uun caabudaan bis. Marka Ilaahay aan caabudno oo noqono addoommo Allah subxaanahu wa tacaala. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaan wax badan ka faa'iiday. Hada wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.